mujaahid xasan guuro oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu nasiib darro iyo foolxumo weyn oo aan la sii eegan karin ku sheegay amarkii ay maanta ciidamada boolisku ay kula wareegeen xarunta xisbiga mucaaridka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. mujaahid guuro waxa uu dib u xasuusiyay saaxiibadii madaxweyne Biixi iyo wasiir Maxamed Kaahin ficilladii ay sameyn jireen waqtiga ay mucaaridka ahaayeen iyo qaabkii uu la dhaqmi jiray madaxweyne Daahir Riyaale. waxaana uu su'aal geliyay in wixii shalay loo dagaalamay natiijadeedu ay noqotay ficiladan ay maanta ku dhaqmayaan mujaahidiintii u soo dagaalamay dalkan oo maanta talada dalka ugu sarreeyay. waxaana uu madaxweyne Biixi kula taliyay in aanu noqon madaxweyne ficiltama balse uu noqdo madaxweyne u tanaasulan dantan dalka. isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri guud ahaan marxalad adag baan horta maraynaa dalkeena waxaad moodaa nidaamkii siyaasiga ah ee aynu haynay wadadiisa inay soo xidhmayso moodaa sida odayaashii horreeyay sheegeen in alle intii la dooran jiray ee codka ummadda ku iman jirtay meesha maanta kursiga ku fuli jiray taa madaxweynaha mooyaane mid kaliya oo mandate yani intii dadku uu siiyay dastuurku uu siiyay meesha ku fadhidaa ma jirto. axsaabta waxay ku guuleysteen inay sameeyaan muddada doorashooyinkeedii muddadoodii inay qabtaan xeerarkii lagu bedeli lahaa guurtida doorashooyinkan maalin walba dib u dhacaya in wax laga qabtaa bay ahayd. waxaad aragtaa axsaabta qudhoodii gudahoodii baa dimuqraadiyadda ka jiran oo ognahay oo nin xisbigiisa looguma tegi karo nin walba xisbigiisa isagaa leh. xaaladda adag baynu ku jiraa waxaynu ognahay bariga waxaa ka taagan galbeedkii murankan imika siyaasiga halkan ka jira waxaanu maraynaa marxalad aad adag taasi mowqif baanu ka leenahay gaara dhaqsana dadkaanu ugu soo bandhigaynaa halkaanu taaganay waxa weeye taasi way xidhan waddadaasi way xidhantay aynu ku socnay siyaasiga ahayd ee saddexda xisbi ahayd way xidhantay xaggii loo guriya hal isweydiiyo taasi talaanu ka ahayn wixii annaga nala noqoto waanu soo gudbin doonaa haddii la idhaa waqtigaas taa markaan intaan kaga baxo waxaanu soo noqonayaa xalayto waxaanan kollaba filaynin baan TV baan daawaday baad walba baan daawan jirin TVyada xalayto xubka qalbi magarmaaye waxay soo kiciyay maanta waxa weeye waxaan dhageystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliland loo dhiibay oo TV ka hadlayo shirsharaad qabtay runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtirfanayay markaan arkay waxaan tirtiro xageed joogtaa wuxuu mudaharaad lama ogola sharcigaan ogolayn la yaabayo dee sharciga uu ku cusubiyo booliiska iyo sharcigiisa mu akhriin iyo mudaharaadku wax loo badiyay loo maro mu akhriinin military baa sharta la soo qabto la keenay waxyaabaha dhibaatooyinka jireen institution dhisma aynaan ogolayn institution walba dadkii garanayo joogeen cid kale keenayna kii joogeen agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir xigeenka iyo agaasimaha ay marwada bedelay ilaa wasiir daaxadkii uu ka dhignay political oo aan habboonayn way siduu u dhaadanayay walaha lama qaban karo lama iman maayo annaga qabanayna waan aad iyo aad baan u yaabay waxa kaloo la yaabay waxa la igu yiri laba nin baa la xidhay ninkii la xidhay xogayihii afayeenkii xisbiga wadani waxa soo booqday xogayihii xisbiga kiina waa lagu daray taar waa la sii yaabay waxa kaloo maqlay nin maalin dhow ta hadlay ayaa xalayta gurigiisa loogu tagay inta la soo xidhay oo eray yiri ila ma hanala meeraysan ila meel noo wad waxaan maraynayaa waxaan la yaabay oo kale TV-ga iyo intaa wareen maqlay iyada labada nin ee xukuumada meesha fadhiya ee saaxiibada ah madaxweynaha Maxamed Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin Axmed oo saaxiibaday waa ragan jaadka soo wada galay waxaan moodayay waxaan u soo dagaalanay wax ka duwanaa waxaan moodayay inaan waxaan u soo dagaalanay aanay ahayn waxaan maraynaa kabtaan kufay ku qosle ayaa lagu xidhi jiray Maxamed Saad ku xidhi jiray eray yiri inay lagu xidhnaa eebayn mid kale saaxiibayaal mucaarad baynu weligeynba ilaa maalintan SN masuulin mucaarad baynu hayn qolo tiraahday tiro qolo waxaanu shirkay baan xisbigayga dhexdiisa iyo hortiisa ku qabanaynaa waxaan inta alaamka inta leegiyo fulinimada inta leeg hortiisa kama filin iyo baqaayta waa maxay baqaayta leeg mid kale لا تنهي عن خلق وتأتي مثله فعال عليك إذا فعلت عظيم واحد أدوق السمين شرتي عد أما أتسميسه عد إن أتكو هذا يسوح فرح إنه مظاهرات أو كل يوم الناس بيجي واحد قبض من السمين شري ما أنت واحد معنا إلا ريال إلا عقال وإنه جبورا جل شري
weynigii aqalada isku xeeri jiray weynigii shaaniyada qarxin jiray maanta maxaa dhacay dhingad baan kaaga soo saaraya fadhiyi maysid taariikhdii baad eegayo youtubeyada dadku barku waxaa ega wuu inagu qosdaya waxaa lagu yidhi nin ahaa berigii Haarun Rashiid waqtigiisii inaan sheekada aad u hayn baa laga yaabaa raalliha laga ahada laakiin anigu waan mutahinayaa ayaa qolo barnaamij ka leeyahay ayuu munaasibtii waaweynado dhan ku tahay Haarun Rashiid oo ay kala qoran yihiin dabeedna arrin markaa adkaa oo boqorku aanu u qaadanaynin oo aqalka galaangalkiisa faradhiirana ayaa nin madaxa oo weyn lagu sheegay dhowr ninoo barnaamijkadiina waxbaa lagu sheegay sheekh sudaanka ceeb ku ah dabeedna nin reerka barnaamijkada ka mid ahaabaa intuu kacay wuxuu yidhi lastu anaa min albarnaamika wala albarnaamikatu minni iminka waxaan isweydiinayaa waa nimankaa saaxiib baa ahaydeen jabhaddii baa wada ahaydeen calan cas baa wada ahaydeen nimankii dalkan rogay baa ahaydeen waar waxaa u soo wadeen mooxanu aha umbo xasan saaxiib ku ahaydeen talow maxaa waxaan idhahdaa lastu anaa min SNM waxaan idhahdaa talow lastu anaa min calan cas labada talo ima calan cas baan ka baxay maanta saaxiib yaal waxaan leeyahay ku soo noqda idinka yeeli maayo saaxiibkay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ilaa maalintii noogeen mucaarad baan nahay maanta in baan mucaarad ku xidhaynaa kaama yeelayo dadkuna kaama yeelayo laynoogamana fadhiyo waxaa dadku inaga filayay markaynu dalka duminayno dadka laynay inaynu waxaan ka duwan samayno 30 sannadood baynu fadhinaa labadii waa ayaan darro in dadku yidhaahdo labadii SNM gooray ay qabatay waxay ka liidataa labadii hore ka qabtay waa ayaan darro in dadku yidhaahdo SNM odaygii siinayo ma loo dhaafayaa madaxweyne Muuse laguma dhaafayo adiga maxamed kaina loo dhaaf maayo qof baa haddayaanu xidhnay idinka yeelaysaa ma jirto ilaahna idinka yeelimayno idinka yeelimayno dib uga noqda arrintaa odaynimo ku wada deganaansho ku wada wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan buudhinin wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan waxaad walaal ku weydo wiil waalidkii loodhan jiray ee dadka waqtigiisii u akaa ina rag walaal wuxuu ku dhaamaan waayay buudhi waxaanan ku samaynin ma jiro buudhi rag ina rag waxaa ku wadi karteed madax ku noqon kartaa waa waxa weeyaan walaal iyo soo dhaweyn ma aha haddaynu markii hore qalqaali ahayn inuu qalqaali ahaanu kursi baynu fadhinaa ka weyn qalqaalinimada madaxweyne cadhoodaa oday cadhoodaa oo dul qaadan waaye taariikhda kuma jirto waxaan hore kaga sheekeeyey ku noqon maaye xuseen xasan iyo sudaantiye iyo wixii kala maray markuu isagoo shirka dhexdiisa jooga ku caayay shirka dhexdiisii intuu ammaanay buu yidhi 100 nin buu la qiimeeyey hal nisaa u eegi karaa ma jirto maalintaasuu ka adkaaday waxaad ka adkaanaysaa marka aad qofka xumaan sameeyey u dhaafto waad ka adkaanaysaa laakiin markaad xumuhu sameeyey xuma ugu bedesho kama adkaanina waad la mid baad noqotay barbaraan noqoteen hab ficiltama madaxweyne ficiltama ama oday ficiltama waa ayaan darro waxaan ku soo koobayaa waxaa laynaga fadhiyaa laynaga sugaya haddaynu SNM nahay iyo haddaynu calan cas ahayn iyo haddaynu dadkii dalkan dagaalka geliyey ahayn waxaa laynaga fadhiyaa wuu ka badan yahay hebel baa hadlayn xidhay wuu ka badan yahay wuu ka weyn yahay hebel baan la xintamaya wuu ka weyn yahay labada nin baan keeno labada murankaasi arrin muran dhaliyey baan oday ka ahay wuu ka weyn yahay cabdiraxiin muule ismaaciil shabakadda wararka Ilays News magaalada Hargeysa